wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab ay xalay la wareegeen degmada Muqokori ee bariga gobolkaasi kadib dagaalkii cuslaa ee kula wareegeen gacan ku haynta degmadaasi. shabaabka ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday fariisimo ay ciidamadu ku leeyihiin dowladka degmadaasi, taasi oo keentay in dagaalku uu ku sii fido gudaha degmada Muqokori. dagaal hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday kadib shabaabka ayay u suurta gashay in ay si buuxda gacanta ugu dhigaan xarumaha maamulka ee degmadaasi. xaaladda degmada ayaa u muuqato mid degan iyadoo ciidankii xoogga dalka iyo kuwa difaaca shacabka ee horay u joogay haatan ay dibad joog ka yihiin degmadaasi. gudoomiyaha degmada Muqokori Maxamed Cabdi Mucow ayaa xaqiijiyay in kooxda Al-Shabaab ay xalay iyagu ku hoydeen degmada Muqokori ayna isu diyaarinayaan sidii ay dib ugala wareegi lahaayeen, laakiin ma sheegin goorta ay ciidamadu dib u qabsan doonaan degmada Muqokori. gudoomiyaha ayaa qiray in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawacba isugu jiro oo ciidamada ka soo gaaray dagaalka, isla markaana uu jiro sargaal hay'adda nabad sugidda ka tirsan oo lagu waayay dagaalkani. gudoomiyaha ayaa magaca sargaalkaasi ku sheegay Cabdi Xaashi. gudoomiye Mucow oo la hadlay radio KNN ayaa dowladda federaalka ku dhaliilay in taageeradii loo baahnay aysan ku bixin dagaalka ay reer Hiiraan kula jiraan kooxda Al-Shabaab. dagaalkii maanta ayaa inta badan dadka reer Muqokori ku riixay in ay ka barakacaan guryahooda, cabsi ay ka qabaan in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato. weerarka ayaa noqonaya kiisii ugu horeeyay ee ceenkiisa ah ee ay Al-Shabaab ku soo hujuuntay degmada Muqokori tan iyo markii kooxda Al-Shabaab laga saaray degmadaasi ku dhawaad 3 sano ka hor. qabsashada Al-Shabaab ee Muqokori ayaa kicisay dareenka shacabka Soomaaliyeed, waxayna noqotay waxa dalka loogu hadalheynta badan yahay. ciidamada dowladda iyo kuwa difaaca shacabka ayaa 25kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2022 la wareegay gacan ku haynta degmadani. weerarkii maantana wuxuu ahaa isku daygii ugu weynaa ee Al-Shabaab ay ku soo beegsato degmadaasi. shabaabka ayaa istiraatiijiyad dagaal ka lahaa qabsashadooda Muqokori si ay u helaan marin ay ku gaari karaan bariga gobolka Galgaduud iyo Galmudug. kooxda Al-Shabaab ayaa 2 bilood ee u dambeysay culays gaar ah ku hayay degmadani kadib markii maleeshiyadooda qabsatay deegaanka Yasomaan oo hoostaga magaalada Buulabuurte ay ku fashilmeen in ay furtaan wadada Yasomaan ku xiriirisa degmooyinka Muqokori iyo Maxaas ee tagta bariga gobolka Galgaduud. Al-Shabaab ayaa juhdi badan ku bixisay in ay si dhaqso ah ula wareegto Muqokori oo ay u arkaysay mid isku xiriirin karta maleeshiyadooda Hirshabeelle iyo Galmudug ka hor inta aan laga saarin degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe. saraakiisha amniga ayaa laga soo xigtay in haddii aan si dhaqso ah dib loola wareegin Muqokori ay xitaa mustaqbalka adkaan doonto in Al-Shabaab laga saaro degmada Aadan Yabaal. marka aad fiiriso in gurmada xoog lahi ay ka heli karaan deegaanada Dac iyo Wabxo iyo magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. haddii ciidamada maalmaha dhow dib ugu laabtaan Muqokori ayaa waxay ka hor istaagaysaa in shabaabka bariga gobolka Shabeellada Dhexe ay u gudbaan dhinaca gobolka Galgaduud, kuwooda Ceelbuur ku suganna ay u soo laabtaan Aadan Yabaal. tani ayaa soo nooleynaysa fursadii la dayacay ee ay ciidamada dowladda iyo macawisleyda dib ugula wareegi lahaayeen Aadan Yabaal kaliya haddii laga xiro gurmadka uga imaanaya dhanka degmada Al-Kawthar iyo deegaanada hoostaga ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ah isha ugu weyn ee ilaa iyo hadda uu gurmadka si nabdoon ugu soo mari karo, maadaama aysan weli shabaabku si fiican u saldhiganin Muqokori. Muqokori iyo Aadan Yabaal waa 2 magaalo oo daris ah kuna yaala xadka ay wadaagaan 2 gobol ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. sababta ay Al-Shabaab ugu soo degdegeen la wareegitaanka Muqokori waa inay fahansan yihiin in joogitaankooda Aadan Yabaal ee mustaqbalka uu ciriiri ku jiro. Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya
ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in dowladda dhexe uu ugu baaqayo sida uu yiri inaan fursad loo siinin argagixisada isku daygooda argagaxgelinta bulshada iyo dib u qabsashadooda deegaanadii horey looga xoreeyay. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo xoogaga difaaca shacabka ee macawisleyda waxay mudan yihiin garab istaaga dhab ah, waxaana dowladda dhexe ugu baaqayaa inaan fursad loo siinin argagixisada isku daygooda argagaxgelinta bulshada iyo dib u qabsashadooda deegaanadii horey looga saaray, ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa dhankiisa waxa uu dowladda Soomaaliyeed ugu baaqay in ay la timaado qorshe wax looga bedelayo xaaladda dagaalka iyo habaca ku yimid howlgalladii lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab. waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa in ay la timaado qorshe wax looga bedelayo xaaladda dagaalka iyo habaca ku yimid howlihii la dagaalanka Al-Shabaab. dowladdu waa inay mudnaanta koowaad ka dhigtaa la dagaalanka Al-Shabaab halkii ay ku mashquuli lahayd arrimo kale oo siyaasad ahaan loo xallin karo, ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.